حانتا قدقودن ها dhagaxa gudgudan buu shiiri jiray wali waxaan ku suganahay degmada Xaafuun aanu joognaa meelaha uu dahabka ku shiiday jiray Talyaaniga waqtigu halkan u fadhiyay sida la sheego Talyaanigu meeshan ma joogin madaxda kaliya ee dana kale ayuu ku watay isaga u gaara madaxda dadka uu ku mashquul jiray hadda goobtan aan taaganahay waa meelaha uu dahabka ku shiiday jiray waxa la socday dalmar oo marka waxa jirta saaxiibayaal buxul baa jirta maxaan ku sheegi karaayay waqtigaas uu samaystay Talyaanigu dhagax kulleeto meelahaas uu ka soo guray baan oo sharixi doona buxushaas wuxuu sameeyay Talyaanigu dahab ku shiidi jiray goobta markana adeer buxushan waxa laga soo guray dhurbo dhurba laga soo guray marka dhurbo ka keeni jiray halkan uu keeni jiray wuxuu ku shidi jiray dahabku ku shidi jiray dahabkaas uu habaysan jiray oo qaadan jiray macnaha isagoo habaysan oo dabka bahashan dabkeeda xoog badan marka dhuxushan la helo aariyo ku furi jiray aariyada markuu ku furo dadami meesafar la taas ka shidan tahay bahashani anfac badan bay u lahayd hadii dadku fahmaana dhuxusha laga kaaftoomi lahayo iyada la shidan lahaa marka waa laga helaya bahasha waa laga dhurbay taala dhurbay taala marka waa si fiican baa loo helaya Soomaaliya ka buuxda bahashani dahabka ma wuxuu ka isticmaalay wixii dab loo isticmaalay dhan buu isticmaalay dab hatta reena yaryar oo lahaa oo ku isticmaali jiray tareen halkan iyo gurdushiisu mara waa lahaa jiray oo dhulka marax baa jiray waxaan milixda iyo lagu sheegayaa micno ma lahayn dahabka iyo alaab kale lulka iyo waxa ay kala baxo dhulka waa hadda room ku dhisan tahay waxaan lahaa buuraha kale ka gudjito dhagxaanta gudgudan dhagaxa gudgudan buu shiiri jiray